wakaas waa midho aad u macaan oo runtii uu qof kasta cuni karo. bismi illaah, ilaahay ow noo barakee waxaadna siisay. allahuma baarik lanaa fii ma acطaytana warzuqnaa khayra minh. maa shaa allah. caadi ma aha. haddaad bilowda ma daynaysid. waxaas ma iska wadaa. inahu ladiid jiddan. zaa'id buu u macaan yahay. balaan bidhbidho af soomaaligiina waa ku jiraa. bidhashaa la dhahaa af soomaaliga. bidhasho dadka qaraashinka markaad koronkorta ama cambuurada markaad afka saa ugu tuuraysa waraan iska bidhbidha bal muxuu ahaa bidhasho aan ku sameeya cambuuladii ama koronkortii. calaamadaha kaleeteed ku garan midka fiican waxaa ka mid a waa mushbic. wuu ku dharjinayaa wax yar markaad cunto cunada waxaa weeyaan jidhkaagii waxaad ka dareemaysaa inaad cunto xoog la cuntay ayaad ka dareemaysaa. energy xoog badan buu ku siinaya. faa'iidada saddexaad ee uu leeyahay waxaa weeyaan tootoosiyaa la yidhaahdaa. dadka wuu soo wada tootoosinayaa. kii caatada ahaa, kii cayilay ee buuraa. bismi illaah, alxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah. maanta waxaan rabnaa iyadana inaan ka faa'iidaysano, gaar ahaan aan ugu faa'iideyno dadka inta badan waddamada ka baxsan waddankii ka baxsan ku nool midho ay helayaan oo luuqadda carabiga lagu yidhaahdo fustuq lagu yidhaahdo. af ingiriiskana de kolley dadkii yaqaanaa garanaya markay google garaystaan oo translationka google-ka tagaan isagaa u sheegi doona. bostaasho iyo wax saasaa la yidhaahdaa. midhahaas iyaga ah wakaas fustuq baa la yidhaahdaa. waa midhahaas isaga ah. wakaas waa midho aad u macaan oo runtii uu qof kasta cuni karo. bismi illaah, ilaahay ow noo barakee waxaadna siisay. allahuma baarik lanaa fii ma acطaytana warzuqnaa khayra minh. maa shaa allah. caadi ma aha. haddaad bilowda ma daynaysid. waxaas ma iska wadaa. inahu ladiid jiddan. zaa'id buu u macaan yahay. balaan bidhbidho af soomaaligiina waa ku jiraa. bidhashaa la dhahaa af soomaaliga. bidhasho dadka qaraashinka markaad koronkorta ama cambuurada markaad afka saa ugu tuuraysa waraan iska bidhbidha bal muxuu ahaa bidhasho aan ku sameeya cambuuladii ama koronkortii. iska bidhanaya. soomaaligaas iska barta bal. luuqaddii soomaaliga barashadeedii inaan soo celinno ha loo soo codeeyo bal. luuqaddii soomaaliga barashadeedii markii la fiirinhayo qiimihiisa khidaa'iga ama cunno ahaantiisa waxa uu ka kooban yahay wax allaale iyo wixii bini aadamka naaficu ahaa waa laga helayaa. intoodii badnayd 90% ha ku kala duwanaadaan, laakiin waxaa weeye waa laga wada helahayaa. wuxuu ka mid yahay geedaha ayagii iyo mid kaloon hadda soo wadno oo dadku si khaldan ay u isticmaalaan. waxaa ka buuxa waxa loo yaqaano omega 3ga, omega 6 iyo omega 9 iyo alaabbaa ka buuxda.
marka biyaha ka buuxa taaqa ku jirta, borotiin baa ku jira, duhuun baa ku jirta, karbohaydraad baa ku jira, alyaaf iyo fibers baa ka buuxa, calcium baa ku jira, xadiid baa ka buuxa, magnesium baa ku jira, phosphor baa ku jira, potassium, alaxmaad adduhniya ayaa ku jirta oo omega 3 loo yaqaano omega 6 iyo omega 9. waxaa ka buuxa isagana alaxmaad alasasiya waxa loo yaqaano amino acidka aad u dhahdaan luuqada carabi, luuqada ingiriiska loo yidhaahdo amino acid complexiga, isaga oo edeel ayaa ku wada jira, wax ka maqan ma jiro. vitaminadii macaadintii muhimka ahayd oo dhanna way ku jirtaa. amino acidkii midkii asaasiga ahaa iyo midkaan asaasiga ahayn labadiiba waa ku jiraan. iyagana waynu baran doonaa amino acidka inagu soo noqnoqonaya, waynu baran doonaa biidnihi tacaala. waxaa ku jira macdanka loo yaqaano waxaa weeyaan zinki, waxaa ku jira potassium, waxaa ku jira waxaa weeyaan nuxaas, waxaa ku jira magniis, waxaa ku jira selenium. vitaminadiina waxaa ka buuxa vitamin c, vitamin b oo dhan way ku jirtaa, a iyo e. waxaa ku jirta iyadana amino acidyada kale iyo macaadinta kaleeta ee waxaa weeya iyagana faalin iyo aljanin iyo kulli wixii oo dhan way ku jiraan. haddii marka aan inaga oo raacayna waxaas laga helay, inaga oo raacayna geedkan waa cunno waana dawo, waa qariinkii xulbadda iyo toonta. saaxib wuxuu leeyahay oo xagga waxtarka hadduunan meelo badan weliba kaga horreynin uu la mid yahay xagga cunanimada iyo dawanimada, wuxuu la mid yahay xulbadda iyo toonta ayuu la mid yahay. geedkan isaga ah markaa waxaa weeyaan midhahan isaga aheed arkayseen aan cunayay, hadda nafteeda inaan iska daboolo mooyeen waxaan ka baqi inaaban iska hayn waayo oonu iska sii cuno une. asaga ah waxyaalaha ugu muhimka ku yahay waxaa ka mid a wuxuu dhisaa jidhka bini aadamka isaga oon qofka cayirinaynin oon baruur siinaynin, sidii sararta geela ayuu u dhisahayaa murqaha iyo jidhka iyo canaasirta jidhka bini aadamka uu ka kooban yahay oo dhan. wuxuu ku samaynayaa tarmiim iyo dhismo waxaa weeyaan jidri ah ayuu ku samaynayaa, sidii aan xulbadda ku sheegno kale. jidhkoo dhan buu waxaa weeyaan dibu habayn ku samaynayaa, laguma bararo, laguma cayilo, calool laguma yeesho, laakiin wuxuu kaa dhigahayaa maroog aan caadi ahayn, tiiri aan caadi ahayn. maroog iyo tiiri toona waxaan u malayn hadda inaynan garanaynin, laakiin iska daydayda insha allahu intii aan isgaranayna un baa is afgaranayna. inta kaleeta soomaalida inteeda badan hadda af soomaaliga amaba taqaanaba tiiri iyo waxa weeyaan maroog iyo waxaa weeyaan nin soohan iyo nin waxaa weeyaan geed adag iyo nin birlab ah iyo kulli waxaas oo dhan dhalinyaradu ma garanayso. waxay ku leeyihin af ethoobiyan maa ku hadlaysaa maca sheekho, waxaa ku hadlaysa af ethoobiyan miyaa iska kaa dhahayaan marka waa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in luuqadii soomaaliga nafteedii maaragtay laga dhex helo, cashar bixinteenna in laga dhex helaan rajaynaynaa. geedkan isagaa marka midhahan isaga ah ee loo yaqaano fustuqa ama botasio la yidhaahdo waa noocyo badan yahay, laakiin waxaa la rabaa nooca bislaaday een la dedejinin ee canaasirtii qoraxda iyo dhulka uga baahnaa ka nuugay een la dedejinin ee qoraxda helay kaasaa fiican. calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid a kolkaad gadato meel walbood adduunka ka joogto hadda ma kala sooci kartid, oo adiga intaad hadda soo kor istaagto ma garan kartid, oo takhasuskaaga inuun ahayn baa laga yaabaa, oo inta takhasuska ule ay yar yihiin. marka waxaad ku kala garanaysa waxaa weeyaan isagoo cagaarana wuu jiraa, isagoon cagaar ahaynna wuu jiraa, isagoo midabyo kala duduwanaad heli, isagoo qishrigiisi iyo qolofkiisii wataad helaysaa. kolley safiirkaan rajaynaynaa inuu soo geliyo isagoo qolofyadiisi iyo geedkiisiiba uu idin soo tusiyo biidni lmawlaa. marka waxaad ku garan waxaa weeyaan dhadhami. kolkaad dhadhamiso gadaal markaad ruugto macaan uneexadii u eg, macaan oo macaankii uneexada oo kaleeta ah inaad gadaal ka hesho weeye. haddiina uneexo garanayninna hadda iyadana waa dhib kale dhadhankii uneexadoo kaleu leeyahay markuu orgaaniga yahay oo uu bislaado. isaga waa geed weyn, marka waxaa weeyaan waxaa la rabaa inuu dhadhan gudaha macaan carabkaaga inuu ku sii reebo ayaa la rabaa, oo sida uneexadii oo kale uu kugu sii dhadhamo ayaa la doonahayaa. ama markii ugu dambaysa sida wancarida dhadhankeedii oo kale, wancarida dhadhankeedii oo kale ama uneexada inuu kuu yeeshaa la rabaa, gadaal maaragtay uu kaaga dhadhamo ayaa loo baahan yahay.
calaamadaha kaleeteed ku garan midka fiican waxaa ka mid ah waa mushbic wuu ku dharjinayaa wax yar markaad cunto cunada waxaa weeyaan jidhkaagii waxaad ka dareemaysaa inaad cunto xoog la cuntay ayaad ka dareemaysaa energy xoog badan buu ku siinaya markaan usii soconna marka intaas kadib fawaa'idda uu leeyahay geedkan waxaa weeyaan midhahan jidhkuu dhisaa oo waxa weeyaan si aan caadi ahayn ayuu jidhka bini aadamka u hagaajiyaa fawaa'idda kaleete oo uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu soo celiyaa maskaxda iyo neerfaha hagaajintooda iyo maskaxda hagaajinteeda lianna wax allaala wixii cunsur ahaa oo quud u ahaa si khaasa ugu sii ahaa maskaxda ayuu waxa weeyaan uu quudinhayaa marka wuxuu siinayaa dadka ardayda ah ee dalabatulcilmiga ah darajo kastay waxbarashada kaga jiraan ama galaaska hoose ha ku jiraan ama PhD ha diyaariyaan quwad ay wax ku xifdiyaan oo ay wax ku diyaariyaan oo ay maaragtay energy ku helaan ayuu siinayaa jidhka taaqa aan caadi ahayn buu siinayaa faa'iidada saddexaad ee uu leeyahay waxaa weeyaan tootoosiyaa la yidhaahdaa dadka wuu soo wada tootoosinayaa kii caatada ahaa kii cayilay ee buuraa dadka wuu isku soo duwahayaa waa isku duwe dadka waxaa weeyaan qofka wuu isku soo toosinaya waxaa qofka wuxuu ka dhigahayaa inuu noqdo qof tawaasun leh oo cayilkii baruurtiina wuu kaa celin caatadiina wuu kaa celin adigii dhannaa waxaa weeyaan dib buu kuusoo waxaa weeyaan kuugu samaynayaa tarmiim marka waa tootoosiye waa la yidhaahdaa fawaa'idda kaleeta uu leeyahay ee cilaajiga ah waxaa ka mid a aad ayuu u hagaajiyaa waxa loo yaqaano taranka gaar ahaan wuxuu la dagaalamaa waxa loo yaqaana cuqmiga sidii salarka aan kusoo sheegno oo kale uu ku dhow yahay iyo geedkii la ohan jiray muxuu ahaa karafsiga ama silariga af ingiriiska lagu dhahayey ayuu ku dhow yahay weliba asagu wuxuu la sii dheer yahay dhanka ragga noolaha waxa la yidhahda xayawaanulmanawiga ayuu aad isaguna waxa weeyaan u xoojiyaa zaa'id buu u xoojiyaa sababtoo tahay waxaa ku jira arjanin baa ku xiga oo cunsurkaas macdankaas muhimka oo amini acidka ka mid a oo loo yaqaano cunsurkii taranka sida vitamin eedoo kaleeta ka ah xagga macaadinta ayaa xoog ku leh oo dadka muxuu ahaa dhalmadu ku xumaato waxaa weeyaan ayaa la siiyaa fawaa'idda kaleete marka uu iyadana leeyahay geedkan isagaa waxaa ka mid a wuxuu la dagaalamaa kolestaroolka xun ee dadka dhiba fawaa'idda kaleete uu leeyahay waxaa ka mid a wuxuu la dagaalamaa dacfu sharaayiin waxa la yidhahdo dadka xididadu xumaadeen oo jidhkoodu qoraha xooga badan iyo ay ku dhaceen istaroogga iyo qalalka iyo intay ku dhaceen ama muxuu ahaa ku gaajooday jirooyinka intay ku gaajoodeen waxaa weeyaan dhareen oo maqaarkoodu dhareen xididada neerfahooda iyo systemkooda waxa weeyaan sharaayiinta ayuu aad iyo aad kor ugu qaadahayaa waxaa kaloo uu aad kor ugu qaadaa isagana dhiigga hagaajintiisa ayuu kor u qaadaa fawaa'idda kaleete uu geedkan leeyahay waxaa ka mid ah asagana oo waxyaalaha uu cajiibka ku yahay ayadana ka mid ah wuxuu la dagaalamaa waxa loo yaqaano daalka ama nooga qofku inuu cadaalo oo caajiso oo uu noogo oo wax maaragtay uu iska noqdo waxaa weeyaan caajislow ah ayuu la dagaalamahayaa sidii wuxuu u shaqaynayaa kafayga oo kale qofku markuu cabo iyo green teaga waan u soconnaa isagana insha allah duruusteennu ku jiri doona iyo fawaa'idda uu leeyahay shaah oo dhan fawaa'idda uu leeyahay soomaalidu ku disha sankorta insha allahu iyadana waan ka hadli doonaa waxaan isku dayi doonaa weliba inaan tagno in badan uu igu riixay ninka la yidhaahdo safiirka islaamku inaan beerta shaaha caleenta meesha lagu abuuro lemuru ama baasha la yidhaahdo muxuu ahaa karijwa inaan aadno insha allahu waan tegaynaa ilaahay idamkiisa markaasaanan soo duubi doonaa geedkii annagoo beertii waxaa weeyaan shaaha dhex taagan iyo fawaa'idiisii oon ka warramayno iyo waxa dadku ay ku dhibaateeyaan annagoo ka warramayno insha allah marka nashaadka sidii adoo kafay cabay qofka cajiskii iyo burburkii iyo daalkii iyo wixii oo dhan ayuu waxa weeyaan ka qaadahaya fawaa'idda kale uu leeyahay waxaa ka mid a wuxuu la mid yahay waa qandhadejiya asagana qofka waxaa weeyaan xumadda iyo qandhada iyo qofku markuu cuno ayadana hoos buu kaaga dhigahaya awooddaadii iyo daaqadaadii kaleetana kor buu u qaadahaya aad buu korkuugu qaadahaya fawaa'idda kaleete uu geedkan leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu la dagaalamaa waxa la yidhaahdo muyuucatu dam dadka waxaa weeyaan dhiig baxa leh gabdhaha dhiig furanku ku dhaco dadka waxa weeyaan ku imaado babaasiirta dadka qaba ee dhiigooda intuu nuglaado iska dhiig baxaya yacnaa sidii tiinkii oo kaleeto ayuu u shaqaynayaa tiinkii oo kaleeto oo dhiig joojin camal weeye takhathum buu ku samaynayaa
dhinaca waxaa weeyaan dhiigga. waxaa jira marka iyadana system loogu daweeyo oo loo siiyo dadka qaba xagga ragga. baryahan dambe sheegashadu way fara badan tahay xagga dacful jinsiga, waxaa weeyaan noocyo badan buu ku imaadaa. isaga naftiisa insha allahu duruusteenaan kusoo dari doonaa asbaabaha keena ninkii inuu waxaa weeyaan uu daciifo, gabadhu inay ku imaato buruuda jinsiya ku dhacdo. asbaabaha keena waan ka hadli doonaa, laakiin markay ciladaa jirto si public ah loo dhihi mahaya sidaa iyo sidaa, hadda si cun ahaan buu u qaadanayaa. laakiin markuu si mucayana qofku doonayo inuu isaga daweeyo, waxaa weeyaan garaam iyo system mucayana la bari insha allahu tacaala oo la tusi. inshaasaan caawa darsigeenna maanta kusoo joojisanaynaa. geedkan isaga ah oo aan hadda gacanta ku hayno, waxaan keli ah wax taxdiir ah waxaa kaga jira oo yacni dadka laga digahayo, dadka buurbuuran inaynan badsanin oy wax yar ka isticmaalaan. dadka cayilkoodu zaa'idka yahay iyo dadka sonkorta qaba inay aad u yaraystaan oy wax yar ka isticmaalaan baa loo baaha. intaa basa mooyeen bulshada inteeda kale waa free. kulli waxaa weeyaan waa loo ogol yahay, kulli waa loo ogol yahay. laakiin inta laga isticmaalayo waa intee? intii hadda aan aniga ay arkayseen anoo ka isticmaalahayo baa laga isticmaalaya. intaad hadda afka aan bidhbidhan hayay, afka ku tuurtuuranayay hal sacab maalinka dhan intaa inaad ka badsato lama ogolo. iska jir, intaas lagama badsan karo. aan gacanta ku soo qaaday. weliba sida fiicanna waxaa wanaagsan isaga iyo inaad isku darto buduurulka, waxaa weye baalka la jeeda buduurul qarci ama bamkinka iyo asaga inaad isku darto, iyo muxuu ahaa geedkan la yidhaahdo macadamia, isaguna waa kan gadaashayduu joogaa. isagana duruusteenna marka intaad isku darto aad isla cunto ayaa aad iyo aad u qiimo badan. darsigeennu maanta intaasuu ku dhan yahay. allah idin barakeeyo. jazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.